fatahaadaha webiga Shabeelle sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Amuuraha Hirshabeelle Shaasha wax weyn ilaa intii oo wax weyn ilaa soo dhiibays on kala si meel gaarno waxa soo gaaray gargaarkii ugu horeeyay ee soo gaara dadka ku nool geeda barkaan iyo deegaanada ku teedsan oo fatahaadaha webiga Shabeelle iyo roobkii dayrta ay barakiciyeen walaalaha Somali Community Brokis Albert ee dalka Canada ayaa deeqda raashinka ugu talagalay qoysas ku dhibaataysan tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe oo saameynta fatahaadaha ay ka taagan tahay qaar ka mid ah dadkii la gaarsiiyay gargaarkan ayaa ka mahadceliyay walaalaha Canada waa mahadsan yihiin oo jana maanta noo keenay inta Ilaahay ka soo qaaday alxamdulillah al-magarsul waa mahadsan yihiin waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha Soomaaliya oo Canada joogo oo na soo booqday oo tabarucan kaalmaatiga Ilaahay naaga soo qaaday ayaan u mahadcelinaynaa taasoo alla dartiis ay walaalahood ay u soo gargareen tan kalena waa ka sugaynaa walaal jira ayaanu leenahay waxaa jira maanta walaalihiin meel kasta ay joogaan dhibaato baaxad leh oo weyn ayaa Ilaahay u keenay Ilaahay qudradiis waaye waxa dhacay biyo iska qulqulaayo oo biimadoobe oo meel ay ka yimideen meel kale aan la garanaynin webi Shabeelle waxaan u mahadcelinaynaa walaalahayna Soomaali ayaan u mahadcelinaynaa 12 kiilo bariis bar 12 kiilo bar oo sokor 12 kiilo bur ayaan u mahadcelinaynaa walaalahayna Soomaali qeyr ala asiyo waxayna noo keeneen Canada walaahay noo keenay in biino soo barakaceen on ilmahayna iyo intay una ka waxan cuno on la haysan ayaan walaalahayna oo mahadcelinaynaa qeyr ala asiyo saddex sariir ayaa oo la jiro walaalahayna oo joogo dalka Canada oo Soomaaliyeed waxaan uga mahadcelinaynaa gargaar degdeg ah ayna soo gaarsiiyeen iyadoo ay mataqaanaa meelaha ay ka arkaan ambaba ay ka daawadaan biimadoobe oo iska guuraya inay wadamadaayna amba guryahayna amba beerahayna ay dhaxyaaleen Ibrahim Damaley waxa uu kamid yahay dadka deegaanka waxana uu sharaxayaa gargaarka la gaarsiiyay noociisa Somali Community Brokis Albert waxaan uga mahadcelinaynaa inay soo gaarsiiyeen deeq raashin oo taasoo ah caag saliida iyo 12 kiilo bar oo bariisa 12 kiilo bar oo bur iyo caag saliida waxaan leenahay iyo half oo rubac bariisa waa maasantiin waxaan leenahay walaalaha kale ayagana meel kasta jooga inay ku soo daystaan sababtoo sidaad arkaysaan maxaan ku yiraahdaa meel banana la jooga ma ahan tuuladii sababtoo ah tuuladii biyaha wada hareereeyay oo wax gaari ama mooto wax gaari kara ma lahan marka meel banaan ay maxaan ku yiraahdaa joogan tuulada talama tagi karo waxaan inta maxaan ku yiraahdaa haraan dadka la siiyay waxa waa ilaa 28 ruux waa marka waxaan idin leenahay dadka Soomaaliyeed ayagana maxaan ku yiraahdaa ka damqanayaan inay ku soo daystaan Xamdi Abuukar Xasan oo kamid ahayd dadkii loo wakiishay bixinta gargaarkan sidoo kalena kamid ahayd wariyaal dhawaan baahiyay muuqaalka dadkan oo tabaalaysan ayaa sharaxaysa waxa ay gaarsiiyeen waxa maanta deeqdii ay noo soo wakiisheen walaalaha Somali Community Brokis Albert aan u qaybinay 28 ruux oo ku nool tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo uu saameeyay fatahaada webiga Shabeelle alxamdulillah ilaahay ayaa mahad iska leh sidii loogu talagalay ayay noogu soo dhamaatay 28 ruux ayaan u qaybinay oo waxa ruux qofkiiba uu qaatay 12 kiilo oo bariis ah 12 kiilo bar oo bariis ah 12 kiilo oo bar oo sokor ah 12 kiilo bar oo bur ah iyo caag saliid ah waxaan aad uga mahadcelinaynaa walaalaheena Soomaaliyeed ee ku nool dalka Canada oo magacooda
loo soo kaabiyo Somali Community Broadcast Albert oo deeqdan inoo soo wakiishay alxamdulillah sidii loogu talagalay ayaan u soo dhamaatay waxaan rajeynayaa in si wanaagsan looga wada qayb qaadan doono caawinta dadka uu saameeyay fatahaadda webiga Shabeelle sida aad u jeedaanba meel banaan ayaa ku qaybinaynaa maadaama aan la gaari weyno oo aan gaari weynay in tuulooyinkii ay ku noolaayeen isla markaana uu ka soo horeeyo webiga Shabeelle goobihii uu saameynta ka geystay gargaarkan ay Somali Community Broadcast Albert ee dalka Canada ay soo gaarsiiyeen dadkan ku nool tuulooyinka hoos yimaada Jowhar ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa ah oo loo fidiyo tan iyo markii ay saameynta fatahaadda qabsatay dadka ku nool deegaankan. Cabdishakuur Shasha, CNN.